xafiiska saadaasha hawada ee dalkeena Itoobiya gaar ahaan laanta jigjiga oo la aasaasay sanadku markii uu ahaa 1952 isla markaasina aan ku ekayn oo kaliya jigjiga balse xogaha saadaasha hawada siiya xarunna u ah magaalooyinka Dirdhabe iyo Harara ayaa wada dadaalo ballaaran oo lagu sii xoojinayo xogta saadaasha hawada sidoo kalena maadaama ay roobabkii guga ay ka bilaabeen deegaanka Soomaalida ee Itoobiya meelaha qaarna ay dhici karaan inuu keeno khasaare ama fatahaado ayaa waxa xafiiska saadaasha hawada ee dalka gaar ahaan laanta jigjiga uu ugu baaqaya guud ahaanba shacabka deegaanka in ay taxadarkeeda lahaadaan gaar ahaan degmooyinka Qalaafe iyo Mustaxiil oo uu sii marayo webiga Shabeelle ee magaalada Guday Abel Sisay waa ku siisimaha maareeyaha xafiiska saadaasha hawada ee laanta jigjiga waxa uu sheegay in roobab xoogan ay ka bilaabeen qaar ka mid ah gobolada deegaanka isagoo sheegay in caasimada deegaanka ee magaalada jigjiga roobkii shalay ka daayay uu socday 42.2 millimeter halka dhagax buurna uu daayay 70 millimeter qabri daharna uu daayay 36 millimeter iyo Goday oo uu daayay 12 millimeter